بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا يا وما سنتين أنا أسوق يراي شر صحافات كان إن القبته إن شاء الله الدنيا إن كجاه الله ما دام أياد بي سنة كيستيدات أي كجرت جريتان كذا يهول قلنا كذا إن idiin soo bandhigo ama dadweynaha Soomaaliyeed aan u bandhigo siiba reer Puntland waxa ay BNPF qabato saxaafadeedkan intaas ku saabsan sida la socotaan BNPF waxa la aasaasay sanadkii 2011 bishii October 4teedii BNPF mandate-keedu wuxuu ahaa xilligaas la dagaalanka burcadbadeed sida doctor wadankeena muddo badan waxa yaani ragaadiyay dhibaateeyay sumcadana ka dilay waxay burcadbadeed xilliga jidhay sida darteed si aynu sumcadeena iyo sharafteena kor u qaadno waxa la dejiyay qorshe sidii loo aasaas lahaa ciidanka waana lagu guuleystay ciidanka xilliga la dhisay ilaa xilliga maanta mandate-kii ugu horeeyay wuxuu ahaa in burcadaas la dagaalamo runtiina waxaan leeyahay ficiliyan waa lagu guuleystay burcadbadeedii waana la baabiyey markii aanu taa ka gudubnay oo minimize garaynay in badan in aan mandate kala qaadanay oo ah la dagaalanka taariikhda human smuggling kaasoo la turkiyaanu dib badan inagu haya oo ay dadkii ay badda ku dhamaanayaan wadada wax ma garata ay hawlahaas ka shaqeynayaan nasiib wanaag hawlgallo badan oo la sameeyay waa lagu soo qabtay sharcigana waa la horkeenay mushkiladda ugu badan oo halkaan laga hortimidna waxay ahayd haddii tuug iyo tuug kale oo isla dhuumanaya oo adag tahay sidii looga guulaysan kari lahaa laakiin taa laftirkeeda dadaallo badan baa laga galay waxaa kaloo jira mandate kale oo ahaa weapon smuggling hubka sharci darrada ee dalka soo galaya in la dagaalamo kaasina xilligii hadda ugu dambeysay oo hadda 3 bilood meelaha laga joogo yaani hubka ugu faraha badnaa waa qabanay waa lagu guuleystay si toos ah ayaan la dagaalanaa si toos ah ayaan informationkiisa u raadinaa arrintaasna waxaan moodaa in horumar fiican laga gaaray waxaa kaloo jirta aafadan fikirka xunka ee guracan ee al-shabaab iyo daacish inay dalkeena dhibaato weyn ku hayaan ha noqoto koonfurta Soomaaliya iyo ha noqoto bartamaha iyo inagaba falilah alxamdu waa lagu guuleystay Puntlandna way ka jiraan meel ay ka dhaqaaqaan laakiin ciidanka ammaanka ee Puntland ayaa u guntaday tilaabooyin aad u wanaagsan oo laga qaaday ma dhihi karno ma jiraan laakiin waxa weeye hadee marnaba sida ay doonayaan inay u dhacaan ilaahayna ma qadarin annana ma ogolaanin mana ogolaan doono mandate-kaas waa ugu dhibka badan oo nimanka argagixisada sharwadayaasha aan raano isagana halgankiisii waanu ku jirnaa mar walibana waa heegan baa loo yahay annagoo kaashanayna BNPF ahaan ciidamada kale ee ammaanka sida daraawista BSF-ta iyo booliska beentaba ciidanka waxaa kale oo qayb ka yahay ammaanka guud ee Puntland sidii uu uga shaqeyn lahaa oo guud ahaan Puntland wax alla wixii ammaan darro ku haya shuruucda dalkan aan waafaqsanayn in aan wax ka qabanno waa mar walba diyaar baan u nahay ilaa xilligii la soo ciidanka la unkay ilaa iyo maanta waxaa lagu jiray tababaro kala gedisan heer saraakiil iyo heer askarinimo oo basic ah intaasna waa lagu guuleystay runtii si fiican bayna howlahaasi meel yihiin waxaan leeyahay ciidanka BNPF maanta bad iyo bariba badweynta Hindiya iyo badda cas labadaba iyo barigaba goobo meel aan joogin
way yar tahay markaad fiirisid wadooyinka Hindiya ciidanku wuxuu ka howlgalaa 4 goobood xagga badda casna wuxuu ka howlgalaa 4 goobood taliska dekada iyo qandara bariga wuxuu ka howlgalaa 4 goobood sida Garowe isku shuban meesha la yiraahdo galgala iyo Suure xagga Hindiya wuxuu ka howlgalaa Garacad Ayl Haafuun iyo Beergaal taamicneed waxa weeyaan in aan sabankii soo xirnay barigina meelihii ugu muhiimsanaa oo ciidankaasi ka howlgalay waxaan oran karaa ciidankaasi inuu yahay ciidanka koowaad ee Puntland lafdhabarka tiirka u ah xagga amniga marka insha Allah taasi waan kasii hore u sii dhaqaajino maahane ma rajaynayno inaan gadaal u noqono ciidanka discipliinkiisa akhlaaqdiisa tababarkiisa intaasba mar walba mashquul baa lagu yahay xagga badda waa joogto maalin walba saamada gaagaaban howladaha galgalada gaaban kuwa dheerdheer inta way fulaan siday tahay bay u fulaan waxaan isleeyahay sanadkan sanad guuradiisa October markaan gaarno in ay wax badan oo kale ay noo qabsan doonaan dhammaan howlahaasna marka laga reebo xukuumadeena maanta jirta oo dadaal weyn ku bixisa runtii sidii ciidankaas loo kubcin lahaa geed gaaban iyo mid dheerna u fuulay runtii waan ku mahadinaynaa waxaan leeyahay dadaalka ay sameeyeen bay wax walba ay ku suurta galeen waxaa kale oo laftirkeeda xusid badan dowladda UAE oo runtii aan oran karayo ayaduna waxay u ahayd lafdhabarka labaad oo naga caawiya xagga tababarada xagga fanka xagga experience-ga ama la talinta iyo dhammaanba xagga logisticada marka iyagana waxaan leeyahay haddee laa shukra cala waajib maadaama Allah yaatiin inaad caawisaan dee xaq baanu idinku leenahay annagana insha allahu marka iyaga wada caawin doonaa haddii aad noo baahataan intaasaan kusoo gabagabayn lahaa oo saxaafadeedkayga haddii aad wax su-aal qabtaanna diyaar baan idin lahay والله أصلاً ترى أنا أصلاً المجال الوعد محمد الشاوي وحنا كسوات في دولة بنتلان إمارات وحيد تو براسيل أو عندما نبي أفتح وأنا أكتب وحاجة خلاف وحيد دولة الإمارات كدولة الصومالية مركز أرنتاس وحسامين ممكن يركرتها تو بردي الإمارات كذي خنجري may anigu inta aan ogahay ma ogi khilaaf ka dhaxeeya dawladda Imaaraadka iyo dawladda federaalka Soomaaliya anigu ma ogi kaasi haddii uu jirana anigu ma ahay nin siyaasi ah oo garanaysa politician ah waxaan ahay askari waxaan ku ekahay mandate-kayga iyo shaqadayda oo kaliya dadka walaalaha Imaaraadkana waxa weeye waxa naga dhaxeeya waxa weeye inay nacaawiyaan caawintii ay nacaawinayeenna wax saameyna iyo wax maaragtay dareen ah oo hoos u dhaca wax kor u siyaada maahane marna maana ku arag hadduu khilaaf jiro waa khilaaf meel kale ka jira laakiin khilaaf anaga iyo dowladda Imaaraadka iyo ka jira mid ma jiro tani waxa sheegteen in 6 bilood oo dambeeyay hub gacanta ku soo dhigtay kala duwan hubkaasi dhowr jeer baa soo bandhigay isagoo aan wax cid ah soo qaban dadkii hubkaasi watay iyaga xagee ku dambeeyeen iyo howlgalladaas laakiin way jiraan xilliyo aan howlgallo sameynay dad aan ku soo qabanay howlgalladaas iyagana sharciga la mariyay laamaha garanaysa booliiskana loo gudbiyay way jiraan hub kale oo la soo qabtay oo aan cid lagu soo qaban waxa jiray mid dhulku aasnaa oo dhul lagu aasay oo masalan ba maartay aan dad loogu tagay waxa jiray mid ma garanaysa sidoo kale laga cararay nabadda hubka la soo qabtay muhiimadu waxa weeye haddii aad weydo wixii aad doonaysay dhammaantii haddaad weydo oo aad qayb hesho qaybta anbaa muhiim inaad qabato waxa muhiimku waxa weeyaan hubka
waxa wax baabiinaya waa hubka marka hadduu shakhsigii carrey la waayey hubkii baa muhiima marka in la qabto taasina maana dhicin marka magacaygu waa Cumar waan ka socdaa Somali Cable TV iyo website san su'aasha ku weydiinaya waxay la xiriiraan waxaa sheegay xagga tababarada iyo dhaqaalaha iyo experience-ga ay ka caawiyaan imaaraadku muddadii 7 sano ahayd ee ciidamada ay dhisnaayeen su'aasha marka aan weydiinayo awaamir meelo badan baad ka hawlgashaan oo galgala ka mid tahay oo qandala ka mid tahay meelo fara awaamirta ama hawlgallada ama cidda awood ee amarka ugu dambeeya qolooyinkayda caawiyaan mise waa idinka u madax banaan ka madaxweyne ilaa adiga oo taliyihii ciidanka badda Puntland صح سؤال aad iyo aad aan u jeclaa inaad weydiisaan sababtoo waxa weeyaan waa su'aalaha dadka Soomaalida mid madowga inta badan kaga jirta marka inaan idin cadeeyo maanta aad baan u jeclaa sababtoo ah hadii waxaad weydiinaysaan waxa weeye waa su'aal aad ugu jikraaraysaan ma laakiin waa su'aasha dadka ay qabaan soo markaan ka jawaabo waan ku hasbanahay waxa weeye waa inaad horta waataan in wax la kala saaro wax la wada leeyahay iyo wax aan wada lahayn dalkan anaga iskale ama awirtiisa iyo amar bixintiisa iyo howlgalladiisa iyo waxa ka soconaya iyo xaqaaqiqda anaga laakiin qof ajnabi ma oga sida daradeed qofka ajnabiga wuxuu ku ekaanaya ama dawladda imaaraadku ragga nala joogayeen caawiyo waxay ku egyihiin inay anaga na support karayaan waxa aan u baahanahay oo kaliya in naga caawiyo hadduu yahay tababarka sidee cadow la isaga celiyaa sidee loo weeraraa sidee loo difaacaa waxa kale oo meesha ku jira waxa weeye maxaad u baahan tahay si aad u weerarto maxaad u baahan tahay inaad meel u duusho waxaas waa request oo waxa lagu u baahannahay oo ka dalbano ama aan haysano wixii amar howlgal waxa iskale aniga iyo dawladda Puntland aniguna waxaan fuliyaa waxa weeye ujeedooyinka iyo rabitaanka dawladda Puntland waxa ay furto waxaan anigu abuuray maaha waxaan mandate u leeyahay awood aan u leeyahay inaan fuliyo wixii aan doonayo oo faaridar waxa kaana xukuumadda tilmaamaheeda iyo amradeeda bas kaasana fulinaa ma jirto cid ajnabi ah oo amar bixisay waxa sheegtay saraakiil iyo dawladda dhinaca askari ay tababaraneen dawladda UAE ama United States Emirates وجرى سراكيل يتبدو قاضي أو سيخ بدل ديرات خصوصية dalka wax badan waa ka ilaa hadda ma jiraan saraakiil dawladda imaaraadku BNBF ay u qaatay laakiin really dibadda maxaa loo aadaa dibadda waxaa loo aadaa qof ajnabi ah oo ka aqoon badan ama ka xirfad badan ama college inaad tagto dabadeedna laakiin falilah alxamdu lakali waxaa dhacda in annagu ay noo keenaan experts ay noo soo kariyaan ama iyaga laftirkoodaba in ay duruustii ay ku qaadan lahaayeen kulliyadaha dibadda in halkan lagu qaato su'aal baa igu dambayso oo yes arrinta maalmahan waa la socota waa arrinta baarlamaanka wuxuu ka hadlay federaalka arrintii DPO inkastoo annaga bioport shirkadayda ay dowladda Puntland la gashay heshiis iyaduna imaaraadka كديوان كشان أو DPO host هذا إذن كروحة قرب نسيو دعاوي إذن كبردا نعيد خبرته يتابعوا حركة عاوي إدارة الإمارات كذا كعاوسة أنا تحسي طبعاً بواحد مرمو وجهين هدي حالات الإمارات يسكر يسوق بدرسه ولا يرى تنا كم بح بناك بح وحسب من أنت تحسي ما يكون يعني مديع الدولة نقوليسا مديع الشعب كان نقوليسا يدك حاجات نقوليسا دي حالة السودش أنت واحد من ذيك خصية عيد كنا بدر ريلي وحوي وحنليه وحوي دولة الإمارات كأي دولة فدرال الصومالية هي دولة بنتلان وحكلاف وكل حاجة هذين لغة دولة فدرال كأ هي دولة الإمارات هذين لغة دولة بنتلان هي الإمارات وحكلافه وهذا إن دبلوماسيا وجرى هذا مجرى حكومتنا كمان رئيس الوزراء كمان هذين مدحونا كمان هذين مدحنا بنتنا كمان هذين وح خلافك أما وهذا هذا أما لقاه الله يا واحد يودي بيقول
iyo dowladda federaalka taana iyagay u taallaa waxay ka yeelayaan annagu BNBF ahaan wax saameyna oo ay nagu yeelatay arrinkaasi ma jiro sababta waxaa weeye dowladda imaaraadka ragga representative-ka ee hadda halka u joogay annagana caawiya iyo wada shaqaynba ma leh DDB sidaa darteed wax saameyn oo annaga arrintan nagu leedahay ama aanba ku leenahay ama shuqul aan ku leenahay inna ma jiro